xiisadda ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland ayaa gaartay meel sare iyadoo dhalisay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo kuwo amni ah oo saameyn ku yeeshay geeska Afrika. Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa magaalada Davos kula kulmay madaxweynaha Israa'iil iyo wiil uu dhalay Trump. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga mashaariicda horumarineed. Horaantii bishan Janaayo, wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa booqasho taariikhi ah ku tagay Hargeysa isagoo noqday sargaalkii ugu sarreeyay ee Israa'iil oo booqasho Somaliland ku tago tani markii aqoonsiga la siiyay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa la soo wariyay in uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Hindiya sidii Hindiya u noqon lahayd dalka labaad ee aqoonsada Somaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa codsatay shir aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen ururka iskaashiga Islaamka bishii Janaayo, kaas oo lagu cambaareeyay aqoonsiga Israa'iil laguna tilmaamay mid khatar ku ah xasiloonida gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay inay hayaan xog ku saabsan in Israa'iil ay qorsheynayso in Falastiiniyiinta reer Gaza loo soo raro deegaanada Somaliland. Eedayntaas ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. Soomaaliya ayaa warqad cabasho u dirtay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay iyadoo aqoonsiga Israa'iil ku tilmaamtay gardarro toos ah oo ka dhan ah madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in Somaliland iyo Israa'iil ay ka wada hadleen dhismaha saldhigga military oo Israa'iil ay ku yeelato xeebaha Somaliland si looga hortago khataraha marinka badda cas iyo weerarada Xuutiyiinta. Kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ayaa ugu hanjabay inay beegsan doonaan wax kasta oo saldhig ama joogitaan Israa'iil oo laga hirgeliyo Somaliland iyagoo u arko tallaabada mid lid ku ah amnigooda. Shiinaha iyo Turkiga ayaa si cad u garab istaagay midnimada Soomaaliya iyagoo dhaleeceeyay tallaabada Israa'iil. Inkastoo Mareykanka uusan si rasmi ah u aqoonsan Somaliland, haddana madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu ka shaqeynayo arrinta Somaliland, taas oo muujinayso isbeddel ku yimid siyaasadda Mareykanka ee geeska Afrika. Xiisaddan ayaa u muuqata mid waji cusub u yeeshay siyaasadda geeska Afrika iyadoo Somaliland ay u aragto fursad dahabi ah halka dowladda federaalka Soomaaliya ay u aragto khatartii ugu weyneed ee abid soo wajahday midnimada dalka. Mowqifka madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro waa mid si weyn looga hadalhayo falaqeynta siyaasadda geeska Afrika. Wixii ka horreeyay doorashadii 2024, Cirro iyo xisbigiisa wadani waxay dhowr jeer ka digeen in Somaliland ay ku milanto loolanka caalamiga ah ee u dhaxeeya Israa'iil iyo dunida Islaamka. dhaxal uga tagi mayno caruurteena dhaxal xun baynu uga tegaynaa. Waxa kale oo intaa dheer, saldhigu wuxuu yeelan doonaa saameyn colaad inoo keenaysa. Waxaynu ka warqabnaa dalka Yemen iyo Somaliland waxay isu jiraan 90 kiiloomitir ama 90 mayl. Dayuuradaha waxaynu ka warhaynaa dalka la siinayo saldhiga inuu dagaal kula jiro dalka Yemen. Waxaynu ka cabanaynay Somaliland berigii siyaad bare in dayuurada meel lagu garaacayo. Marka dayuuradaha ka kaca Berbera ee soo duqeeyay Yemen waxaan xaqiiqa inuu jawaab colaadeed ka heli doono, taas oo aan nabadgelyada Somaliland ku faanayso iyo dalkeena khatar gelin karto. saakana qof ayaan ahay, galabta gelinka dambena qof kale aan noqon karaa. shala qof ayaan ahaa, maanta qof kale aan noqon karaa. duruufaha ayaa ibadbedeli kara. Waxa uu xilligaas ku doodi jiray Cirro in xiriir la yeeshay Israa'iil ay sababi karto in Somaliland ay lumiso taageerida dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka ah. Markii uu xilka qabtay bishii December, madaxweyne Cirro waxa uu wajahay xaqiiqo siyaasadeed oo cusub. Israa'iil waxay noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday madaxbannaanida Somaliland. Bishii Janaayo, madaxweyne Cirro waxa uu hadda ku doodayaa in Somaliland aysan awoodin in ay diido aqoonsi caalami ah oo ugu yimaada dal awood leh, xitaa haddii ay hore u diideen, maadaama hadafka uu yahay helitaanka aqoonsi caalami ah. Isbeddelka mowqifka wuxuu si cad u muuqday markii uu la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Halkii uu ka digi lahaa waxa uu hadda ka hadlayaa iskaashi istiraatiijiyadeed. Madaxweyne Cirro wuxuu hadda ku doodayaa in xiriirka Israa'iil iyo Somaliland ka caawinayso dhanka farsamada amniga iyo difaaca hawada, gaar ahaan xilli ay jirto xiisad kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya. Taageerayaasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda Cirro ee gudaha Somaliland ayaa xasuusinaya hadalladiisii hore iyagoo ku eedeynaya in uu bedelay mabaadi'diisii si uu u helo taageero dibadeed. Waxaa jiro dareen iska soo horjeedo qayb ka mid ah shacabka oo u dabaaldegaya aqoonsiga iyo qayb kale oo ka walacsan saamaynta ay ku yeelan karaan xiriirka ay la leeyihiin dunida Islaamka. Isbeddelka madaxweyne Cirro waxaa loo arkaa mid ka yimid baahi diblomaasiyadeed
diblomaasiyadeed isagoo hore ugu digay khatarta xiriirkan. Hadda isaga ayaa hogaaminayo xiriirkaas isagoo u arko inuu yahay wadada kaliya ee Somaliland ku heli karto aqoonsi ka yimaada dhanka reer galbeedka, gaar ahaan maamulka Trump ee Mareykanka oo si dhow ula shaqeeyo Israa'iil.